marka aynu ka hadlayno akhriska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay maaha kuwa la soo koobi karo waxay isugu jiraan kuwa caafimaad ahaan u fiican iyo kuwa ku gaarsiiya horumar diinteena islaamka waxay nagu baraarujisay akhrinta inay tahay nolosha qofka oo dhan waana tan lagu amray nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ereygi ugu horeeyay ee la faray waxa uu ahaa akhri waana fariin guud oo ummadda muslimka ah haddii aan u gudagalno akhriska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay tan caafimaad iyo kuwa kaleba waxaan oran karnaa qaybo badan ayuu faa'iido u leeyahay sida kobcinta garaadku waa xubin ka mid ah xubnaha jirka bini'aadamka waxa uuna u baahan yahay in mar walba la kobciyo waxyaabaha lagu kobciyo waxa ka mid ah akhriska in uu noqdo mid joogto ah culimada ku xil dheer arrimaha caafimaadka waxa ay tilmaamaan in qofka akhriska badan in uu ka caafimaad badan yahay garaad ahaan qofka aan waxba akhrin sidoo kale wax akhrintu waxay ka hortagtaa walwalka waxa lagu tiriyaa cudurka ku dhaca dadka uu ku jiro kuwa uu khatarsan waxaan shaki ku jirin qof walba oo dunida ku nool in mararka qaar uu la kulmo walwal ka yimaado dhanka shaqada iyo qoyska walwalkaas waxyaabaha lagu hortagi karo waxa ka mid ah in qofku uu wax akhriyo sida quraanka kariimka oo ah wax ugu fiican ee qofku ku iloobi karo walwalkiisa sidoo kale inuu akhriyo qisooyinkii salafka kuwa ka sheekeynaya caafimaadka xigmado iyo sheekooyin xiiso badan oo faa'iido leh haddii taas aan la sameyn ay keeni karto inuu isku dhaxyaaco qofka ama uu qaado cudurka dhimirka wax akhrinta wuxuu kaloo ka qayb qaataa badqabka caafimaadka mid jir ahaaneed iyo mid maskaxeed waayo haddaad wax akhrin waxa halis ugu jirta in daawooyinka qaar haddii aad xanuunsato lagu soo qoro aad akhrin weydo deetana aad qalado mid aad doonayso taasoo caafimaadkaaga wax u dhimi kara faa'iidooyinkiisa kale waxaa ka mid ah aqoon kororsi waxa hubaal ah in akhrisku uu ku horseedayo horumarka noloshaada gaar ahaan marka aad akhrinayso waxa aad jeceshahay waayo waxa ku kordhaya aqoon badan waxaadna noqonaysaa qof aqoon badan u leh takhasuskiisa waxaana jira kutubo badan marka aad akhrinayso aad ka helayso fikrado wanaagsan isla markaana aad ku maareyso noloshaada mar walba oo akhriskaagu badan yahay waxa hubaal ah in aad ka faa'iideynayso erayo badan oo aadan horey u aqoon erey bixintaasi waxay ku horseedaysaa in aad ka socnaato dadka kale mar walba oo aad wax akhrinayso ama aad wax qorayso waxaad dareemaysaa degnaanshiyo joogto ah taas oo qayb ka ah caafimaadka qofka waayo haddii stress kugu dhaco waxa meesha ka baxaya degnaanshiyaha waxayna ka mid tahay faa'iidooyinka wax akhriska dadka qaar wax akhriska waa ay ku wareeraan waxa dhacda in ay xadkiisa dhaafiyaan ay ku wareeraan kadibna iska daayaan ama ay ka gaabiyaan waxa fiican in qofka jadwal u sameesto wax akhrinta kuna talagalo ama cayimo oo jaangooyo inta uu akhrinayo maalintaasi waqtiyada ugu fiican ee wax la akhriyo maskaxda ku kobcayso waa salaada subax marka tukato kadib adoo ku bilaabayo quraanka kariimka ah salaada casr kadib iyo cishaha iyo maqribka inta u dhaxaysa ugu dambeyntii waxaad ogaataa sida loo kala akhris badan yahay ayaa loo kala caafimaad iyo cilmi badan yahay وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت